magaalada Baran ee xarunta gobolka Sanaag ayaa waxaa ka dhacday munaasabad lagu taageerayo xasiloonida iyo nabadgelyada gobolka Sanaag taasoo ay ka soo qayb galeen haweenka iyo dhalinyarada gobolka Sanaag waxayna baaq ugu direen Somaliland oo ay sheegeen waa sida ay hadalka u dhigeen inay faragelin khalkhal ku wada nabadooda iyo xasiloonidooda waxayna haweenka iyo dhalinyaradii halka ka hadashay hadaladoodii u dhacayeen sida tan ajantaa shirku xiyaan baaq nabadeed oo aan u direyno dadka dariska nala ah ee 21 sano aan nabadgelyada ku wada noolayn haddana xadgudub keenay inay noo soo dhaafaan magaalooyinka iyagii maamulka Hargeysa ka jira waxaan uleenahay annagu dalka annaga iska leh cid wax laga weydiinaya dalka waa annaga cid ka tashan karta masiirkiisa waa annaga waxaan leenahay hanala ka daayo faragelinta nabadgelyada waa ku wada noolnahay dagaal wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho waxaan leenahay oo maamulka u sheegaynaa inuu naga daayo faragelinta baaqa nabadeed waxaan u leenahay hadaan u nahay reer Sanaag ma rabno annagu in cid inagu soo farageliso dalkayaga annagu ninna ma faragelino waxaan u sheegaynaa Somaliland iyo madaxweynaha ay galbinayaan wadamada cidlada amrinayaan inay naga joojiyaan faragelinta inagu hayaan iyo ciidamada ay soo hubaynayaan inuu halkaas soo taagayaan inuu halba leeyahay hadba Sanaag inaga ale Sanaag ma laha silaayo Sanaag waa Puntland baana maxay tahay iska dalkan aad ku soo socotaan waxaan waxaan ku noolahay gobolka Sanaag waxaan ku noolahay gacmahan Baran runtii waxaan aad ugu murugeysanahay oo shirkan loo soo qaban qaabiyay qalaasaha lagu furay nabadii aynu ku noolayn marka xaq baynu u leenahay inaan ka hadalno oo ka doodno oo baaq ka soo saarno nabadda iyo xadgudubka lagu hayo runtii aad baan ugu faraxsanahay dhalinyarada iyo haweenkan soo qaban qaabiyay oo ajandaha kan u soo qaban qaabiyay inay kaga hadlaan nabadda ay ku noolayaan iyo nabadda ay ku nool yihiin gobolka Sanaag waxaynu ogeyn inuu muddo badan soo noolaa dadka gobolka ku nool inaanay cidna ku duuli jirin cid la leeyahay gobolka Sanaag ba ka soo jeedaa oo burco ayay ku duushay ma jirto taariikhdana kuma qorna laakiin in la yiraahdo burco laga soo duulay Sanaag baa lagu soo duulay oo Baran baa lagu soo duulayaa waxaan ogolayn dadka gobolka ku nool ma ogola runtii baaqan aad baan u taageersanahay dadka xadgudubka wadana saasaan u jeedinayna waxaan leenahay ma ogolidin idinkoo iska nool oo Hargeysa ku nool oo burco ku nool inaan idinku soo duulno oo aad joogi weydaan oo jiifsan weydaan oo aad naga seexan weydaan annagu waxaan baaqan ugu talagalnay in aad idinkuna noolaataan annagu aan noolaano hadeerna waxaan leenahay waxaan Somaliland idin su'aalaya haddaad Soomaalinimadii ka sara kacdeen sinaantii iyo midnimadii sun idin la tahay horta maxaad u sariiranaysaan rag idin la siman waa cajiib haddii Sool iyo Sanaag waa la wadaaga waa la degan yahay anagu ma oranayno annaga kaliya haddii Sool iyo Sanaag sharci kuugu yahay annagu Soomaalinimadaan musaacidnahay haddii aadan sama ku daaqaynin oo ka soco midkii iska dhaarta ahaayo gabadhii ragga guubaabinaysay oo tiri soo taabta ilaa qow iyo xsoonaha aynu leenahay kelmadii aan irina haba lagu qosle aan ku daro waxay ahayd ragga horta aad guubaabinaysaa ma garansan yahay guuldariyo ciil inaad ugu gudoomiseen haddaad si garta qaadan weydaan garaad xune haddii aad garadag soo dhaaf anaga yeelmayno in dhalinyar reer Hargeysa si fiican u noolaato oo wax barato annagana waxbarashada yaray dugsiga yaray aan gacanteeda ku samaysan in laga dumiyo soo jeedinaya dhalinyarta Sanaag u dhalatay macnaha loo soo jiidayo dalkooga inay iyagu ka fuliyaan waxyaabo nabadda aan magaranaysa ka soo horjeeda loo soo kaxaynayo in iyagu macnaha wax gartaan ay damirkoodu shaqeeyaan ay dalkooda macnaha dhibaato soo jiidin sida Cabdilaahi Somali Public Radio magaalada Baran ee xarunta gobolka Sanaag